xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa shalay si adag ugu digay calaf xoolaad oo ay sheegeen inay sumaysan yihiin isla markaana la soo geliyay gudaha deegaanada Soomaaliland. Xisbiga wadani ayaa sheegay in calafkaasi xoolaha laga soo geliyay dhinaca xuduudda ee u dhaxaysa Soomaaliland iyo Djibouti ee Looyacado, wuxuuna xusay in loogu talagalay in loo qaybiyo dadka xoolo dhaqatada ee ku dhaqan deegaanadaasi. Dr. Axmed Cabdilaahi Cige, xogaha xanaanada xoolaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani, oo shalay warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa, ayaa arrintaasi si adag ugu hadlay isagoona ku tilmaamay calafkaasi mid sumaysan oo lagu dabargoynayo xoolaha Soomaaliland. Xogaha Dr. Axmed ayaa sheegay in calafkaasi xoolaha ee sida buunshaha oo kale ah uu dhan yahay 25 kontiinar, isla markaana hay'adda wadda aysan uga dan lahayn mucaawino. Wuxuuna yiri in muwaadin ah ayaa soo sawiray gaadiid uu tiradoodu 25 ku sheegay oo soo galayay xuduudka Looyacado. Wuxuu sheegay in gaadiidka ay saaran yihiin 25 kontiinar oo sida calafka xoolaad sida buunshaha, kaasi oo xoolo badan ku filan. Ninkaasi waxa uu sheegay gawaadhida Djibouti ka timid ee Looyacado ka soo gashay inay hay'adi wadato qoladii custom-kuna canshuurayaan, markay canshuuraanna waddanka ayay soo galayaan. waanu tijaabinay ayuu yiri buunshiga. Duqsi kasta oo isku taagayay buunshiga waa uu dhimanayay. Ninkaasi waxa uu yiri xoolaheena ayaa lagu wadaa oo la siinaya, waxaana loo qaybinayaa xoolaha jooga Looyacado ilaa Taleex. Hay'aduna waxay ka dhigaysaa samafal wanaagsan inay xoolaha siinayso. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland oo ku aadan calafka xoolaha ee uu xisbiga mucaaradka wadani uu sheegay in uu sumaysan yahay, isla markaana Soomaaliland laga soo geliyay xuduudda ay la wadaagto Soomaaliland Djibouti.